sheekh usuuli ilaah ku barakeeyo maasha allah waa hooyo soomaaliyeed oo joogta muqdisho. بارك الله فيك أختي جزاك الله خير. sheekh waxaa rabay inaan ku weydiiyo laba su-aal. مهم. mid kood waxaa waaye sheekho waxaa jirto xaasa ahay مهم. xaajiga marka xoogaa waxaa waaye dadka aan lacag badan aana bixinaynin marka kasta biiloo kaleeto besoo واقرت bixinaa marka sheekho biilkaas haddii intaa wax aan ka dhex bixiyo aan hagbad ku galo familiga iyo guriga waxay u baahayn aan dib ugu soo celiyo sheekh dambi miya نعم أختي أن وح بقام ستد ومال دقيتيد هذا أسكالي midda حقيقة labaad وح في عن واي وح في عنا سمين ساق قبل وحافظة وإلى أن يسقور ومالك الرجل كبيس وح في عن واي لكن أخلاق واحد مدة دين تنوكو بنين سا وحي الجوسي وح مالك دقيتيد هذا أسكالي هسا وحقول تلقى لنا مرصوف هذا اللهم هدي أدتك أد عنقبتين كسمين إنه المية أد عنا الآن دقينه وضي عنا الآن دقينه مركز حق وضي أكو حد كذب تجاروي لكن وحي أدي كوسو هرو ولا ذا هاي أما وحي أوبا هنتها زيادة وكقاعدة كرتا حتى حديث أبو سفيان هندي بخيل وأن كان محمد بحيو جابك وحي ككافي كقاعد ويري مركا حديث كاس عكسي يسوع على فهمه إن وحي كوسو هر مرصوف كذا لكن أخلاق الهام ونكسنت مية وذاك برد وسوق هذا إسلامتي والعقله سو شك مكدار كره هالكاس وسيجا قبلنا العق مرصوف يراسي جرتي لاقين هذا سميس هالكيكة كنت دت كلام سيء لبعتي لهذا أخلاق الهام ونكسن بل إن أسكو كرسونتان aad u sheegtid aad tiraa waxa isiisa wax ka baxsaday oo kula ogaado wax fiican ta insha Allah taasaan kula talinaya dhinaca kan halo halo السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ أسولي وحرب اللي بس علينا كويديو. تنكوات مدكوات وحرب الشيكو دلني يردان أو يرير أو توابرك الله قاضي أو عدني إثيوبيا لقيي أو قال استحدث لقيي dagaalkaas ka qayb galay arrintaas diinta maxay ka qabtaa midda labaadna madaxdii oo aan dadkii la hadlaynin oo waalidiinta barooranaayo dadka muslimiinta ahaayeen ilmahoodii la qaaday arrintaasna diinta maxay ka qabtaa sheekh soo akhi mas'alada hore waxa ilmaha la qaaday waa arrintaas cadeyn ay u baahan tahay bayaan ay u baahan tahay saan sheegay haddaan ka hadlayni shahaado zuurnimada waxaa kamid ah war kasta loo iska sheegay in la iska qaato oo waxay u baahan tahay qofka inuu cadeyn u helo عدينتنا وحالي رأى البينة على المدعي واليمين على من أنكر عدينت مركز هذا الدولة حاجة إذا صارنتها دولة على رأي إني عديسو لا هذا الشيء سو عرورتي اللي ودن كلي جيران ملتري والقرط لب لها لكن إني على الأقل والكاسي والدين تكقاته ومسؤولية صارن وي هديك عبس مسؤولية كبقان ورك عندما يا أخي سو أي كبقان ورك بناك اللي شيء هديك آموسان dadka shakiya galay marka waxa wanaagsan nabiga kaleey salaam wuxuu noo sheegay inaha safiya markuu jidka la socday xaaskiisa habeenkii uu i'tikaafka ku jiray laba nin arkeen ay carreen nabiga kaleey salaam wuxuu ku yiri ala risukuma inaha safiya maxaa wuxuu ka baqay nabiga kaleey salaam nabiga kaleey salaam naag mugdiga la marayso hadhow dadka ku sheekaysan xalan talo naagtii qofku la dumarku la taagna laakiin nabiga wuxuu yiri xaaskay waa ogaad asaa u wacay waa ka carreen oo soo u yeeray macnaha waxa leenahay diintu waxay qabtaa hadduu shaki yimaado qofka mu'miniinta shaki in laga qaado shakigan waa iska sahlan yahay ayadoo la siin karin ayadoo la dhihin waxaan dada ka dambeeyay dada ka yeelin in cadeen la raadiyo ay dawladda bari yeesho ay tiraaho dawladda la hadashay tiraaho nin kasta waalidiinta la shirto ay tiraa wiilkaaga waa kana telefonkiisa la hadal waa lagu soo hadalsiinaa dawladda ilaan dadka aakhir ma jiraan adduunyo jooga meesha reemaha ka joogaan hadday aakhir jiraan ay dhacdeen inay sheegaan markaas wixii diiyay ay wixii makadhaw wixii waalidkii leen wax bini aadam nafo wax laga hadlayo marka taas waa ka السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ وأوقرته. ها شيخ لو سؤال أنا ربنا كويدي الدول اللي تنكوات هذا ما كان هبين دوت waxaan dhageysanaa su'aal nin weydiiyay oo leeyahay ala xaraana yani ogeey marka waa fahmay mid qofka isagoon ogeyn oo san wax shaqo ku leeyahay oo dhigi karo okay waxaas dib ma lahan laakiin markii uu ogaado in xoolihii ay xaraan yihiin soo kuma wanaagsaneen in xoolihii iska celiyo wixii hore uu isticmaalmay inta uu ka haayo inuu xoolihii iska celiyo soo ma ahayn باب ورع وكاس لكن حلال حلاش كم حرن وان شكني حول مال كان يري نين كلا أركي أسنا ولا أو ده هاي
waxa cayn kama hadla anin xoolaha qamar lagu siiyey ama wax riba ah oo lagu siiyey wax kama hadla waxaan ka hadla maalka kasbiga ayuu ku xalaaloobaa oo ku xaaraantoobaa haddii adiga lagu hadiyeeyo cid ku weydiiso waxaa leedahay yurub baa joogta adiga gaalada lacagtii hadda ay bixisa ceerta u bixisa halkee ka keentaa xalaali kusoo shaqaysa mase xaaraani ku keentay labada wax waa kala duwan yihiin waxay ku kala duwan yihiin ninkan waxa uu gaalada iyo nin dawladdu waxay bixisay waxay bixiyay adiga waxa wax ka qaban kartid ma aha laakiin akhi ani waxaan ka hadlayaa maalka kasbigiisa qabasho kuma xirna fiir hal wax yadan kaa dhex galo ha anigoo nin la soo dhacay oo gurigiisa xabad looga dhacay oo lisiya waxba ka ogeyn maalintaa ogaaday in la soo dhacay waxaa aniga laga rabaa wix inaan celiyo ha laakiin waxa aad ku iibsatay lagu soo celinaa laakiin sooma qaaliga waa ku celinaa waxa ka iibsatay lacagtaada lagu soo celinaa ma xaaraanta ma wixii xalaasheeda maaha waxa hadday waan ka hadlo waxaan ku yiri maalka kasbigiisaan ku yiri laakiin hadday waxa ay yihiin waxa oo cayn xaaraantooda cayn sida qamri maal la soo dhacay oo qof kale daba taagantaho la haysta hadday tahay kaas waxa weeye haddaa gadatidne waxa leeyahay dinka maxaa u kaalmaysa laakiin xoolahaaga waa in lagu soo celiyaa oo aad wax ku gadato laakiin beecaas ma ansaxay la leeyahay oo ma aha laakiin macnaheeda ma aha qaadasho akhi asalka qaacidada asalkeeda qaado daliiladeeda u laabo haddaa daliil rabtan daliilkeeda u laabo maalka qofka asalka qofka usoo golo aabbaha hadduu baar qamri ka shaqayn jiray maalkiisa waa dhexli kartaa haddaa warac u diidin adiga ma dhehaysa aabbahe baar qamroo lahaa maalkiisa dhexal ma gala ma dhihi kartid maxaa yeelay dhaxalka waxaa lagu qaataa ubuwa iyo bunuwa lagu qaataa cunug ahaana u dhexlaysaa meeshuu ku keenay maalka asagaa lagula xisaabtama